السلام عليكم سودوات أصحابتا رمضان كريم وعشر كيسيدادن ku hadli doono barnaamijka Premier Pro casharaas oo si free ah uga baxa channelka waxaan idin soo jeedin doonaa aniga Xaydar maanta waxaanu sharaxaad dhameystiran ka bixin doonaa timeline-ka barnaamijka Premier Pro hadaynu guda galno casharka timeline-ku waa miiska aad ku jarjari lahayd wax kasta oo aad barnaamijka Premier Pro ku habeynayso marka inaad barato meel kasta oo kamid ah timeline-ka muhiim ay ku tahay insha Allah waxaanu sharaxaad ka bixin doonaa wax kasta oo aad ku aragto timeline-ka hadaynu ugu horeysiino clipskeena waa soo import gareysanay kadibna timeline-ka ayanu keensanay waxaanu ugu horeysiin doonaa waxa loo yaqaan toggle track output waxa weeye isha tan aad halka ku aragtaan tusaale ahaan isha tan waxay ku tusinaysaa track marka active ka hadii aad disable ka dhigto aad isha xirto wuxuu ku leeyahay trackers ma arki karto program monitor-ka kama arkayso waayo wuxuu ku xiran yahay timeline-ka tusaale ahaan track labaad ayaynu xirnay waad aragtaa markaan track labaad xirno kan ayaa sii soconaya hadaynu furno oo eegno track labaad waa kan hadaynu xirno waad aragtaa clipkii hoose ayaa soo baxaya marka toggle track output wuxuu ku tusinayaa track marka furan hadaad kulli wada xirto meeshii program monitor-kii way madoobaanaysaa marka toggle track output qaabka ayuu shaqeeyaa way sharka kaga muuqata waxaan ku xijin doonaa toggle sign log wuxuu ka hadlayaa tusaale ahaan hadda waa aragtaan gaab yar ayaa halka ku jira markaan gaabka yar ka tirtiro wax kasta oo xagga ka xiga gaabka way soo dhaqaaqayaan tusaale ahaan halkan nagee waxaad u sameysaa xaggan ii soo rar marka gaab ayaa ku jira haddaan rebel delete wax kasta oo gaabka dhinacan ka xigay way soo dhaqaaqayaan xaggan ay soo aadayaan toggle sign log ayaa inoo furan haddii uu ka xiran yahay tusaale ahaan labada tan sare ayuu ka xiran yahay kan iyo kan ayuu ka xiran yahay labada track ayuu ka xiran yahay markaan dhaho rebel delete waxa ay soo dhaqaaqaya bes kan ii furan waayo labada tan uu ka xiran yahay v2 iyo v4 waa video track 4 iyo video track 2 uu ka xiran yahay markaan u furo laakiinse labadooda aan dhaho rebel delete way soo dhaqaaqayaan marka toggle sign log isna saasuu u shaqeeyaa waxaan ku xijin doonaa toggle tracking waxaa loo yaqaanaa kuwa halka ku jira toggle tracking waxa weeye tusaale ahaan mid kastoo halka kaaga muuqda highlight ayaa saaran waad ka qaadi kartaa highlight-ka marka iyaga shaqadoodu waxa weeye tusaale ahaan waxaad rabtaa video track only one ayaa ku highlight garaysan waxaad copy tiri kan ayaad waxaad tiri copy ayaa tiri right click ayaa leedahay haddaad rabto copy ama waxaa leedahay control plus c markaad copy tiri ayaa waxaad samaysay v control plus v ayaa tiri ama paste ayaa tiri wuxuu ku dhex koobiyeysimayaa halka kan ay ku dhex koobiyeysimayaa waayo v1 ayaa inoo furan toggle tracking-kii ayaa inoo furan markaad saa samayso waxaan sameynaa insha Allah qaabkee marka ugu badbaadayna marka waxaad sameynaysaa toggle tracking-kaaga ayaad bedelaysaa tusaale ahaan v2 ayaan ka dhigayaa kadibna waxaan leeyahay control v waxaa sameysmayaa toggle tracking-keeni wuxuu inoo fuulay clipkeeni wuxuu inoo fuulay v2 haddaan v3 ka dhigo tusaale ahaan aan kan ka dhigo wuxuu fuulayaa v3 ama track saddexaad marka qaabka ayuu ku faa'iideynayaa soo inuu ku dooro tracking-ka hadba meesha joogto sidoo kale audio-huna waa la mid shaqada kan uu qabto ayuu qabtaa tusaale waxaan rabaa audio kan inaan koobiyeeyo waad aragtaan halkan ii dhig waxaa ii highlight garaysan a3 oo eedu wuxuu taagan tahay audio oo toggle tracking-kii ah markaan v dhaho waxaa la geynayaa a3 ayaa la geynayaa waad aragtaan a3 ayaa la geeyay marka toggle tracking-kuna saa ayuu u shaqeeyaa wax kale oo faa'iido ayaa jirta play head-kan aad aragtaan ama calaamadda halka socota meesha ay marayso ayuu ku doorayaa tusaale ahaan kan v1 weeye clipkan ayuu u doorayaa waayo v1 ayuu marayaa labada tan dooran maayo waayo toggle tracking-kii ma saarna markaan saaro iyaga waad aragtaan waa inaan ka tirtiraa si uu xagga sare ama track aan markaa rabo uu ii dooro marka qaabkan waa inaad adigu doorataa waxaad ka dooran kartaa sequence ayaad tegaysaa waxaa leedahay selection flow blahid ayaad tigta saaranaysaa marka ayuu ku furmayaa oo ku shaqeynayaa clipka aad markaa rabto ayuu ku dooranayaa waxaa jira waxa loo yaqaano toggle track lock ayaa jira toggle track lock waxa weeye wuxuu xirayaa track oo dhan ayuu ka xirayaa waxna kuma sameyn kartid ma qaadi kartid waxna kama bedeli kartid log ayuu gelinayaa waa qafilka caadiga ah ka soo wada garanaysan haddaynu ku xijino source patching halkan ayuu kaaga muuqdaa
wuxuu kasoo baxayaa meesha tan faaruqa. Tusaale ahaan waxa kan hadaynu ka saarno wuxuu kasoo baxayaa isagoo meesha tan faaruqa. Marka isagu wuxuu ku soo baxayaa tusaale ahaan source pattern-ku waad aragtaan maxaad ku garanaysaa inuu muuqaal bas yahay baalkan. Halka kan ay kaaga muuqanaysaa markuu yahay muuqaal bas aan cod la socon v1 bas ayuu ku soo qorayaa. haddii video bas yahay v1 bas ayuu ku soo qorayaa. hadduu cod iyo video isla socda yahayna wuxuu ku soo qorayaa v1 iyo a1. marka qaabka u shaqeeyo waa sidan. markaad ku dhufato source monitor-ka aad soo rarto wuxuu ku dhigayaa source pattern-ka ee ku dooran ayuu ku dhigayaa. tusaale ahaan source pattern-ka waxa ay doornaa halka kan v1 oo track saddexaad iyo audio-ha oo track labaad. markan soo rarto waad aragtaa audio track labaad ayuu geeyay, video-kana track saddexaad ayuu geeyay. qaabka ayuu isagu u shaqeeyaa. marka isagu muxuu ka badbaadinayaa? tusaale ahaan video badan ayaa halka kuugu jiray, ma rabtid kuwa inuu ku dhex qasmo. haddii uu ku dooran yahay kanna uu ku dooran yahay audio-ha, tusaale kanaan tirtirayaa uu ku dooran yahay kan, waxaa dhaci karta inuu video kan dhex galo. tusaale markaan kan doorto aan soo raro video ayuu uga dhex galay. laakiin haddaan labada tan rabo inaan iga dhex galin waa inaan track aan labada tan midnaba ahayn aan doortaa si uu u tago track-ga. marka qaabka ayuu u shaqeeyaa isagu. waad aragtaan markaan soo raro track aan labada midnaba ahayn ayuu tagayaa. marka track pattern-ku qaabka ayuu u shaqeeyaa. wuxuu ka badbaadinayaa inay isku dhacaan muuqaaladii ama codadkii isku dhacaan. waxaad dooranaysaa track aad rabto, kadibna source monitor markaad joogto qaabkan u soo rareeyay shortcut ayaan adeegsanayay, com ayaan taabanayay. waad aragtaan waa isoo raray. qaabka ayuu u shaqeeyaa waxa loo yaqaano source pattern. waxaa jira waxa loo yaqaano audio tools. audio toolsku waxay ku jiraan track qaybta audio ah. haddii ugu horeysiino codka microphone-ka isaga markaad rabto inaad duubto click ayaa ku dhufanaysaa. wuxuu ku tirinayaa 1 2 3 kadibna waa bilaabay. codkayga hadda waa duubaya. codkayga wuu duubay. waa ka markaan waa bilaabay. codkayga hadda codkii aan sheegay ayuu duubayay. waxaan sameynayaa isaga markaan rabo inaan wax ka bedelo right click-na voice over record setting ayaa tagaysaa. markaad tagto meeshii uu saddexda ka tirinaya halkan weeye 1 2 3 markuu dhaho ayaa codkaaga bilaabi kartaa. microphone-ka aad rabto ayaad halka ka hagaagsanaysaa. marka codka magaca ayaa u baxsanaysaa. qaabka ayaa leedahay. solo wax loo ayaa jira oo solo track wuxuu ku reebayaa bas track-an halka kaaga muuqda. tusaale ahaan track-ga bas ayaa rabtaa inaad dhegeysato, kan ayaad reebanaysaa. solo ayaa leedahay, kan bas ayaa lagu reebayaa. track-yada kale oo dhan ma hadlayaan. qaabka ayaa solo loo adeegsanaysaa. mute wax loo ayaa jira oo wuxuu ka xirayaa track-an bas, inta kale ayaa dhegeysanaysaa. laba qaabka ay kala duwan yihiin. dadka qaar baa waxay sameeyaan markay rabaan inay track-an dhageystaan kuwa kale oo dhan ayay waxa ku sameeyaan mute. waxaas oo dhan inaad marto maaha. solo bas taabo, kan bas ayaa ku soo haraya. haddaad rabto inaad isaga bas aamusino mute ayaa leedahay, kuwa kale ayaad dhegeysanaysaa. qaabka ayaad ku shaqeynaysaa. isna saas ayaa loo adeegsadaa. trick yar haddaan idin siiyo oo idin fududeyn karta markaad ku jirto editing-ka. tusaale waxaad rabtaa track-kan inaad fidiso. hal track ayaa rabtaa inaad fidiso. halta aad qabanaysaa, kadibna mouse-ka meesha garaanta u wareegtaa ayaad saa u balaarinaysaa. waad aragtaa track-gii waa la weyneeyay. ama haddaad rabto waxaba inaad fidiso shift ayaad taabanaysaa. adoo jooga qaybta audio-ha shift ayaad taabanaysaa, kadibna waa kala fidinaysaa oo waad balaarinaysaa ama waa soo dhaweynaysaa dhammaantood. qaybta video-na sidoo kale markaad rabto kulligood shift ayaa leedahay. waad aragtaan waa fidayaan. kana waa sidoo kale alta taabo, track-ga rabto dooro, saas u balaarinaysaa. hal xabo ayuu ku balaarinayaa. marka haddaynu qaybteena usoo noqono codadka, waad aragtaan waxaan halka kaaga muuqda. markaad doorato ayuu ku soo baxayaa. waxaa lahaa keyframes ayaa lahaa. dooro clipka marka aad joogto playhead-ka keen, dooro keyframes ayaa lahaa. wuxuu ku samaysmaa meelaha kan ayuu ku samaysmaa. tusaale ahaan waxaa leedahay markaad rabto inaad keyframe abuurto halkan ayaad ku dhufanaysaa. meel kale ayaa imaanaysaa, halkan ayaad ku dhufanaysaa. qaybtan waxay ku tusaysaa keyframeska dhinaca hadba aadayso ay ku tusinaysaa. marka hadhowna iyaga kala jiidaysaa. marka fade aad sameynayso codka rabto inuu tartiib ku soo bilowdo saas aad sameynaysaa. marka keyframeska iyo waxyaalaha insha Allah cashir gaar ah aynu kaga hadli doonaa. cashir horena waynu kaga soo hadalnay qaabka keyframeska loo isticmaalo, laakiin si soo faahfaahsan insha Allah cashir gaar ah aynu ka dhigaynaa. qaabka ayaa loo adeegsadaa isna
haddaynu ka gudubno qaybta tan aynu u gudubno qaybta sare inta waan dhamaynay haddaynu intan ka gudubno qaybta sare u gudubno kan waxaa lahaa insert and override sequences as nested or individual clips kan insha Allah cashir gaar ayaan ku hadli doonaa kan isaga sharaxaad dheer ayuu u baahan yahay in sequence waxa loo yaqaan aad si fiican u fahanto ayuu kaaga baahan yahay marka haddeer insha Allah ma sharaxayno insha Allah cashir gaar ayaan ka dhigaynaa haddaynu isu gudubno snap in timeline waxay ku sahlaysaa markii uu highlight ku saaran yahay salaam waxaa rabtaa clipka kan ayaad qaaday haddaynu soo dhaweyno clipkan ayaa waxaad rabtaa inaad halka keento markan saas soo dhaho waad aragtaa calaamad yar oo madow oo halka kaaga soo muuqanaysa waxay ku sheegaysaa markii ay snapping ku furan yahay halka ku joog waxa la gaaray clipskii kale laakiin haddii snapping ku furnayn markaad soo qaado wuu iska soconayaa ma istaagayo kan markasta ku furnaadaa si aan clipyada isaga ka dhexgelin markaad sameynayso muuqaal aad u balaaran kan hadaan ku furnayn waxa la yaabaa clipyadu inay iska kaayaan kan ku xiga hadaynu nimaadno waxa loo yaqaanaa linked selection waxa weeye hadda waxaad aragtaan codkii iyo clipkii videoga ah way isla kii socdaan oo isku xiran yihiin laakiin se haddii aan isaga ka qaado oo aan dhaho link selection ka ka qaad waxa ii soconaya bas muuqaalkii hadba kan qaato ayaa ii soconaya halka waxa ku soo biiray waad aragtaan hadaynu soo dhaweyno waad aragtaan kan inoo balaari -4 ayaa ku soo biirtay wuxuu ku sheegayaa codka iyo muuqaalku inay kala dambeeyaan halka negative ku sheegaya halkana plus markaan soo kaxeeyo way isbedelayaan -3 ayuu noqday markaan soo kaxeeyo kan way isbedelayaan -16 waad aragtaan caadi u isleeyahay marka isna inta ayuu ku faa'iideynayaa haddii uu kaas ku xiran yahay codadkii ka iyo videogu ka kala harmay laakiin haddii ka furan yahay oo aan highlight ku saarnayn codka iyo muuqaalkii waa ka kala harayaan highlight ka saaro marka kan hadaynu nimaadno waxa loo yaqaan add marker waad aragtaan marker ayaa lagu soo daray kan imow addaan taabato markerka ayaa lagu soo daray kan markerska ayuu ku soo daray marka qaabka ayaa isaga loo adeegsadaa markerka iyo qaabka loo adeegsado insha Allah isna cashar gaar aynu ka hadli doonaa casharada soo socda kamid ah waayo isagu wax muhiim ah ayuu qabtaa markerku haddaynu ku xijino qaybta settingka oo timeline display settingka haddaynu eegno waxaad arkayseen hadaya video markaan balaariyo salaam kan ayaan rabay inaan balaariyo video thumbnailka halka kaaga soo muuqanaya muuqaalka aad clipka aad markaa hagaajinayso ayaa ku soo muuqanaya waxaad rabtaa inaad iska xirto marka halkan ay tagaysaa waxa leedahay tigta ay ka qaadaysaa waad aragtaan waa laga xiray hadaad furtona waa lagu soo furaya kan show video keyframes waxa weeye markaad rabto tusaale ahaan inaad waxaad rabtaa opacity oo kale aad rabtaa inaad wax ka bedesho keyframeska aad rabtaa inaad ku soo darto marka keyframeski ayaad samaysatay opacity halkan aad ka bedeshayba waxaad rabtaa inaad keyframeskan aadan arag waxaa leedahay tigta aad ka qaadayso waad aragtaa keyframeski meesha waa laga saaray hadaad rabto inaad aragtona waad soo muujinaysaa kan ku xiga waxa weeye show video name magaca halka kaaga muuqda hadaad rabto inaad qariso kan ayaad clip ku dhufanaysaa videoga wixii magaca ku jira oo dhan clipska ayaa laga qaadaya kan saddexaad kan ku xiga hadaynu eegno show audio wave waa halka kaaga muuqda waveska halka kaaga muuqda ee audio wave lahaa haddii uu ka furan yahay ama haddii TikTok ku saarantay waa arkaysa haddii uu aan TikTok ku saarnayn waa laga xirayaa ma arkaysid sidoo kale show audio keyframeski waad aragtaan marka kan keyframesku waa inoo muuqdaan laakiin haddaad iska xirto keyframeski inoo muuqan maayaan kan ku xiga waxa weeye audio nameski kana laga xirayaa sidoo kale magacyada meesha ku jira oo dhan ayaa laga xirayaa hadaad audio name xirto haddii aad furtona waa lagu furayaa kan ku xiga waxaa lahaa show duplicate frames waxaa lahaa haddii uu ii furan yahay hadda waa ii furan yahay kan markaan koobiyeeyo waad aragtaan calaamad ayaa kusoo biirtay calaamaddan waxay ku tusinaysaa in uu jiro duplication frameska halka ku jira ama clipka halka ku jira inuu jiro haddaan xiro isaga show duplicate frames haddaan xiro ii muuqan maayaan marka colors ayuu ku tusinayaan tusaale ahaan halka kan duplication ayaa ku jira labada tan waa isku mid kan iyo kan waa isku mid kan iyo kan waa isku mid colorska uu ku kala duwaya toban markuu gaaro ayuu soo celinayaa colorka koowaad
waxaa jira waxa loo yaqaano intaan waxaan iska tirtiro kuwa kan hadaan iska tirtiro kan ku xiga tusaale ahaan kan ku xiga waxaa lahaa show trace edit maxay iyadu marka ka sheekeynaysaa tusaale ahaan kan ayaad jarjartay markaad jarjartay markuu ku dooran yahay show trace edit waxa ayuu gelinayaa calaamadda yar oo linkiga waxaad garanaysaa kan inuu yahay hal clip aan waxba ku jirin laakiin haddii mid kamid ah wax laga bedelo tusaale kan ayaan rabaa inaan speedka ka bedelo waxaan ka dhigayaa 500 oo kale waad aragtaan 20 kuma jiro laakiin wixii kale ayuu geliyaa marka qaabkii marka isaga tirtiraya tusaale ahaan isagu faa'iido kale ayuu leeyahay waxaad rabtaa inaad cutska oo dhan ka saarto waxaad qabanaysaa control kadibna waxaad sameynaysaa selection ka aad sameynaysaa leed ayaa saaraysaa kadibna delete ayaa leedahay muuqaalkaaga clipkaaga waa la soo ka xiray kan ku xiga hadaan eegno waxaa loogu magacaabaa show effects parties halkan waxaad ku aragtaan effects ay ku aragtaan hadda waa gray waxaan rabaa inaan ku daro opacity wax ka bedelo kan ay door markaan opacity ka bedelo ama wax yar ku daro effectigaas is bedelaya tusaale position ka wax ka bedelay opacity aan soo kordhiyay waad aragtaan wuxuu isu bedelay hurud ayuu isu bedelay ama yellow ama jaalle hadoo sa u taqaanid ayuu isu bedelay haddaan effect ku soo daro aan effect kamid ah effectiyada waxaan ku soo daray Gaussian blur ayaan ku soo darayaa Gaussian blur markaan ku soo daro wuxuu noqonayaa cagaar ayuu noqonayaa haddii aan effect bes ku soo daro effectiyada kamid ah Gaussian blur ayaan rabaa inaan ku soo daro waad aragtaan wuxuu isu bedelay purple ayuu isu bedelay marka haddii aan ku soo daro effect kamid ah effectiyada oo kaliya oo aan opacity iyo scale ka waxa taaban saas isu bedelaya laakiin haddii aan ku soo daro opacity iyo waxa ka bedelo green ayuu isu bedelayaa haddii aad professional ku tahay waxyaalaha colorska iyo qaabka isu bedelayo on halkaas ayaysa waxa leedahay kan effect ayaa ku jira kan waxa ku jira opacity iyo waxa laga bedelo originalkiisa ma laakiin haddii ku aragtid gray noocaas waxa leedahay clipkan waa originalkiisa qaybta ku xigta waa composite preview during the stream waxa weeye salaan labada clip ay isku xigay kan ayaad qaaday oo waxaad ku sameysay waad yaraysay halka waxaad ka arkaysaan meesha thumbnailka waxaad ka arkaysaan qaybta program monitorka clipka kan meesha joogo oo ah halkaas ayaad ku arkaysaa iyo clipka kan oo dhaqaajinayo animation geynayo ayuu uga tusayaa laakiin haddii uga xiran yahay waxa soo dhan tusimaayo waad aragtaan hal clip ayuu tusayaa marka qaabka ayuu isna ku shaqeeyaa minimize all tracks waxa weeye markaad ku dhufato trackyada oo dhan waa la yareynayaa waxa laga dhigayaa wax yar oo dhuuban markaad expand all tracks ku dhufatona waa lagu fidinayaa minimize ayaan ku dhufanaynaa waxa ku xiga save preset salaam waxaan rabaa v1 inay ii balaarnaato iyadoo inay ii balaarnaato iyo audio qaybta koowaad inuu ii balaarnaado ayaan rabaa qaabkaas ayaan rabaa inaan presetkayga u save gareysto waxaan leeyahay halkan aan tagaya save preset ayaan leeyahay waxaan u baxsanayaa magaca ayaan u baxsanayaa tusaalahaan Hyder okay ayaan leeyahay waxaan tagayaa kan expand minimize all tracks ayaan leeyahay waxaan tagayaa Hyder ayaan tagayaa waxa la kala furayaa qaybta koowaad iyo qaybtii fiidiyoda koowaad iyo qaybtii codadka oo koowaad bas ayaa la kala furayaa markaan saas sameeyo sidoo kale waxaan sameyn karaa customize manage presetkaaga ayaa wax ka bedeli kartaa waxaad u sameyn kartaa keyboard shortcut v oo tusaalahan G ayaa taabanaysaa presetkaaga ayaa markiiba lagu boodaya insha Allah keyboard shortcut kuna 10 gaar ayuu noqon doonaa customize video header oo ah waxyaalaha halka ku arkayso ay wax ka bedelay haddii ay wax ka qarsoomaan kan tag videoga kadibna waxa la reset video and reset layout ayaa leedahay ah sidii markii hore defaultiga ay u celi sidoo kale halkan aad ka bedeli kartaa waxa leedahay reset and default ahaan ugu celi customize audio headerna qaabka ayaa leedahay marka maanta cashirkeena inta ay ku eegyahay wixii su'aalaad qabto waxaad ku soo gudbin kartaa insha Allah qaybta commentiga waxay noo balana muuqaalka xiga iyo maalin kale